ururka bisha cas ee gobolka Sool ayaa maanta si weyn u xusay 8 May oo ah maalintii la aasaasay ururada bilaha cas iyo laanqeyrta cas oo maanta oo kale adduunyada oo dhan laga xuso. Munaasabadaas ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha guud ee ururka bisha cas ee gobolka Sool Axmed Maxamuud Warsame Daakir oo ku dheeraaday munaasabadan iyo qiimaha ay maanta u leedahay caalamka, isagoo halkaasi ka sheegay mabaadi'da iyo xeerarka aan u fadhino oo bilaha cas iyo laanqeyrta cas ee maanta 186 wadan laga xusayo inaynu xasuusino sida ay ku bilaamantay waqooyi muhiim ah in qofka dhaawaca hadii la dhaawac joojiyo inuu noolaanayo oo la badbaadin karo, in qofka dhaawaca hadii hal loo jido oo meel la geeyo in la hagaajin karo, in dadka hadii la nigooteed gareeyo oo aan maxbuuska la diin oo maxbuuska la badbaadiyo in colaadda ay yaraanayso oo marka maxaabiista la laayo waxa la laayo colaaddu si badata, laakiin marka waxyaalaha la yareeyo oo dhaawac la yiraan la dil la yareeyo oo barimeegada la laaliyo in waxaasi ay yareyn karto colaadda ayuu xusay oo jira marka inuu sameeyo urur mutadawiciina oo badbaadiya oo nafti hura oo badbaadiya xilliyada dhibaatada iyo dhaawacyadu dhacayaan dhibanaha badbaadiya inuu wadan kasta sameeyo ayuu aadana oo dhibaataysan u gargaarista weyn oo qabanana waa qodob ay xasalaan waa hawayaan waa in ay xasalaan waa inaan labada qof ee dhibanaha ee isdilaya waan loo kala yaxan hadii aad midoo xatid oo ready waa saar baad noqotay waa lagu dilayay marka ana waxa weeyaan wax todobada qodob ee ku ilaalinaya saa ku ilaalinaya hadaa saa wadacday waa jaranjaro hadaa saa wadacday waa midaafi waa ka dhacsa qof kasta oo bisha casana waa inuu mid ku wada ee xasalaan dhexaadnimo. ayaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan volunteerka ururka bisha cas ee gobolka Sool iyo macallimiinta wax ka dhigta iyo abwaanin iyagu kala soo qayb galay munaasabadan ay xusaysay bisha cas ee xarunta gobolka Sool, waxaana kamid ahaa hadaladii dadkii halkaasi ka hadlay gabdhaha sida karinta dawaarada qaabka loo barto uu jira qaybay ka shaqeeyaan sanadka waxa lagu talagalay 26 qof inay bartaan sanadkan in hadda ku jirno 2012 ka waxa ku jira 12 baa lagu talagalay in qof saddex baa wiilala 9 kale waa gabdho oo ah ka shaqeeya awareness house to house sida HIV AIDS FGM iyo STI ga wacyigelinta waxa jira group 9 ah oo sanadkan sameeynay oo waxay tagaan 3 iskuul oo secondary ah sida Muuse Yuusuf iskuulka Ilays iyo nugaal ka bixiyaan waxyaalaha wacyigelina sida ardayda dhalinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta dhaqanxumada qaadka waxyaalahaas oo aad baan ku salaamay cabdishid qofkii la handhaawac iyo rasaas laabta u gashiyo lugooyiye tacadi qaba labada wada caawiye daryeelka u leexdayo bulshadu way liicsantahay halaayicina xafid saxano waa subax wanaagsano soo dhaabisha cas iyo safka ICRC 7kay midoobeen soo yaalka dib u raac sanadku 1990 sanad guradana maantana waa 8 bisha May loo saxeexay xiriirka saadaashuna guul sanadkan bishii saddexaad waxa shahaado la gudoonsiyay 139 arday oo dhameystay xirfadaha kala duwan ee gargaarka degdega ah iyo waxbarashooyinka. waxaa dhigta 173 arday oo iyana dhigta xirfadaha kala duwan qaar ay bartaan gargaarka degdega qaarna ay bartaan waxyaabo kala duwan waxbarashooyin caafimaad ay gelisaan dhalinyarada si loogu dadaalo waxbarashada. waxaan ogsoonay qofku hadaan waxba baran inuu yahay inaanu ka duwanayn xoolaha ka duwan بدنا كسوق يقولون شرفت له قبطي هاي بشعاسي بسكون قبل كسول هذه عاد من فرسنا ما أنت المسؤول كل كردرين كي ما أنت عاد من فرسنا ما أنت أنا دفتوا عسكري بشعاس ديار دي بشعاس ما أنت هلو كسوق هاي مدح دي وتشوف هذه عاد من فرسنا كسوق دقيق قلنا فلنتيرين تا نمبر ألف في عام وفلنتيرين تناقص شيء دميه معلمين تي هذا هو باقي سنة dhalinyarada kale suuqa joogtay inay macnaha ka dhalinyarada kale suuqa joogtay waqti xaadirkan ku sugan quraasada iyo fadhigdurka waxaan ugu maaqnaa inay ku soo biiraan ardaydan walaalahooda iyo falanteerintan u helan sida ay bulshadooda wax ugu qaban lahaayeen oo uga baahi saar lahaayeen. Somali Channel TV xarunta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.